waa maxay sababta daba dhigtay Salmaan Khan gangsterka weyn ee reer Hindiya Lawrence Fishburne? Maxayse tahay waxa uu uga baahan yahay cabsida soo wajahday reer Khan? Ma waxay gaadhay inay yidhaahdaan hakii jiliinka xilli superstar-kani dhexda uga jira samaynta filimkiisa Kabidwale baqdinta laga qabo dilaaga weyn ee Hindiya? Ma waxay kaliftay Salmaan Khan inuu gebi ahaanba iska xaadiriyo saldhigga ugu dhow ee xaafadiisa? waxaan ku eegaynaa barnaamijkeena maalinlaha dhacdada haysata Salmaan Khan, arrimaha gaangistarkan la daba dhigay iyo waxa uu uga baahan yahay cabsida reer Khan soo wajahday, talooyinka dadka celebrity-ga iyo aktarada iyo fanaaniinta caanka siinayaan aktarka iyo superstar-ka weyn ee Salmaan Khan. jawaabtii uu bixiyay Salmaan xilli aamusnidu ay badnayd, qalabka uu ka soo saxeexday saldhigga iyo alaabooyinka uu ka soo qaatay aadka u culus xilli uu naftiisa isku weerka hayo superstar-ka iyo aktarka caanka ee Salmaan Khan. balse intaasi ka hor fadlan ha ilaawin inaad like-garayso muuqaalka, subscribe si aanay ku dhaafin muuqaalada xiga, lana wadaag saaxiibada haddii ay munaasib tahay. सलमान खान के पिता सलीम खान को सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय एक चिट्ठी waxay ahayd sabtidii la soo dhaafay oo markay Salmaan Khan iyo staafkiisu aadeen iskana xaadiriyeen saldhigga booliiska, isagoo sharciyaystay kana qaatay halkaasi hubaad kala duwan kuwaasoo uu ku taxay bastoolado iyo qoryo kala duwan staafkiisa iyo ilaaladiisa khaaska, halka isaguna uu ka qaatay bastoolada cajiiba. superstar-kan ayaa u sheegay biliiska inay muhiim tahay inuu si gaara u ilaaliyo naftiisa, qasabna ay ku tahay kadib markii ay soo wajahday cabsida badan hanjabaadaha istaba joogga uga imanaya maafiyada iyo sidoo kale dilaaga weyn ee Lawrence Fishburne. markii ay kala goy weysay muddooyinkii u dambaysay dabaysha iyo duufaanta cabsidu, कई पेपराजी ने उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए घेर लिया। सोशल मीडिया पर सलमान खान का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अभिनेता ilaa iyo markii la dilay fanaankii reer Punjab ee Sidhu Moosewala kaasoo haar cadarasaas lagu furay laguna dilay mid ka mid ah wadooyinka gurigiisa aada xilli wax ka badan 15 xabadood lala eegtay jidhkiisa, ayaa waxaa ku soo kordhaysay cabsida laga qabo inuu dilo ninkani Salmaan Khan kadib markii aabbaha dhalay superstar-kan oo la yidhaahdo Saleem Khan ahna duqeytiyooday da'weyn uu soo wacay shaqsi ka mid ah maafiyada dilay ninka laga Sidhu Moosewala una sheegay inay dilayaan isagana aktarkan iyo superstar-kan weyn ee Salmaan Khan. taas ayaa ahayd bilowgii cabsida iyo duufaanta laga qabo mar qura in la dilo aktarkan. haddaba waxaad is weydiinaysaa maxay tahay waxa ka dhexeeya Lawrence Fishburne iyo superstar-ka Salmaan Khan? maxayna tahay waxay isku haystaan? maxayna tahay sababta uu doonayo inuu u dilo aktarkan maadaama aanu lahayn wax dambi ah? Capital's Tihar prison complex in connection with a separate case. The police believe that Moosewala's death Sidhu Moosewala intii aan la dilin ka hor waxuu ahaa mid ku dhex jira mar walbana aan ka dhex dhammaanin arrimaha siyaasadda, isagoo qaadayay heesa ku saabsan arrimaha siyaasadda. qaar ka mid a dadkii siyaasiyiintaana dhaleecaynayay si la mid ah Sidhu Moosewala wuxuu ku lug lahaa Salmaan Khan arrimaha siyaasadda muddooyinkii u dambeeyey, isagoo ka soo muuqanaya goobo badan oo goobo siyaasadeed ah, weliba isagoo la saftay xusbiyada mucaaradka ee wakhtiyadan ugu adag dalkaasi Hindiya. waana wixii lagu dilay kadib markii siyaasiyiin badan oo looga adkaaday arrimahaas ay u adeegsadeen maafiya iyo gaangis ninkii la odhan jiray Sidhu Moosewala. waana sidoo kale midda ay la raadinayaan Salmaan, uguna hanjabeen waliba inay dilayaan hadhcad si aan warwareeg lahayna uga taklusiyaan naftiisa. waxaana jiray actors iyo fanaanin caana oo ka tirsan dhanka iyo Bollywood-ka kuwaasoo Salmaan Khan ku baraarujiyey inuu si weyn isaga warhayo, sidoo kalena ay badan tahay halista ku gadaama nafsadiisa, khatarna uu ku jira wakhtigan maadaama ay u soo hanjabeen Lawrence iyo maafiyada loogu baqdinta badan yahay gudaha dalkaasi Hindiya. Where Saleem Khan goes for his morning walk. For more news and updates, stay tuned to E! Times. haddaba
waxaa la ogaa bilowgii wiigga iyo sabtidiina dhaaftay salmaan khan inuu tegay saldhigga si uga soo sharciyaysto jaakadda celisa xabadda iyo rasaasta, balse intaasi waxay ahayd bilowgii oo keliya. baqdintu waxay ka waaweynaatay guryo iyo awr sidoo kale. waxaanu tegay mar kale saldhigga, waxaanu ka soo sharciyaystay liisana u soo goostay gaadhi bullet proof ah oo ah kuwaanay xabaddu karayn, iyo sidoo kale istaafkiisa inuu gebi ahaanba mar kale ku soo taxay hub iyo bistoolado iyo qoryo waaweyn. waxaanu jabiyey aamusnida markii la weydiiyey maxay tahay sababtaad u soo noqnoqonaysaa kuguna kaliifaysa inaad sidan oo dhan u cabsato. waxaanu sheegay Lawrence Fishno gaangistarka weyn inuu yahay mid keliya yeesha ku haya muddooyinkii ugu dambeeyeyna hanjabaadihiisu ay soo tarayeen. intaasoo keliya maaha, waxau sheegay marar badan inuu soo wacay isagoo ka soo wacaya lambaro kala duwan, uuna sheegay inuu dilayo Salmaan. waana sababta uu soo iibsaday gaadhi qiimahan ku fadhiya 1 karoor iyo badh oo ah lacagta laga isticmaalo waddankaasi Hindiya, uuna dhiganta $188,000 Maraykanka ah, si uu naftiisa protection ugu sameeyo ee gebi ahaana xabadaha lagu soo ridi karo oo isaga difaaco. Before the firearm license was issued, only after standard procedure steps were cleared, waxaana tilmaamay booligaadhka khaaska ee Salmaan Khan oo lagu magacaabo Sheera inuu gebi ahaanba yariyey bixistii iyo socodkii faraha badnaa jawi qaadashadii muddooyinkii u dambeeyey. ninka leexda Salmaan Khan superstarkan ayaa cabsida ku kaliftay gebi ahaanba inuu naftiisa ilaashto, sidoo kalena hubeeyo istaafka iyo dadka la socda, indhahooduna meelo badan ay qabtaan si ay uga feejignaadaan isagana ilaaliyaan cadowga iyo nacabka mar kasta soo weerari kara. और उनके साथ हथियार बंद सिक्योरिटी गार्ड्स भी रहते हैं. intaasna waxaan ku saafmeeraynaa barnaamijkeena gaaban oon uga hadlanay Salmaan Khan. barnaamijkan wuxuu gebi ahaanba ku duwan yahay kuween uga hadli jiray dhanka iyo Hollywoodka, maadaama aan soo qaadanay barnaamij la xidhiidha dhanka iyo Bollywoodka iyo sidoo kale koonfur Hindiya kana duwan barnaamijyadeennii hore. waana mid iska caadiya oo aan soo gelino hadba waxyaalaha cusub, waxyaalaha daruuriga, dhacdooyinka ay nagu qasbaan asxaabteennu ee muhiimka iyo waxyaalaha update-ka kana socda caalamka iyo daafihiisa. channelkan waa channelkiina, waana muhiim inaad heshaan waxyaalaha update-ka iyo dhammaanba dooqiina iyo waxyaalaha jeceshihiin. ha ilaawin inaad igula wadaagto fikirkaaga, qaabka ay kula muuqato muuqaalkan, cabsida soo wajahday Salmaan Khan iyo wixii ay kula muuqato adiga. saldhigga inuu tagay inay daruuri tahay, muuqaalada aad jeceshay inaynu soo qaadanay inta lagu guda jiro wiikan, dhammaanba qaybta hoose ee comment sectionka. aragtidaadu waa noo muhiim mar kasta. like garee muuqaalka si uu u gaadho dad badan, subscribe dha oo ku soo biir channelka si aad u hesho kilibyada dambe aanu soo gelin doono, lana wadaag saaxiibada haddii ay munaasib tahay.